Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkayga Xaliima's Healthy and Beauty. walaaladii igu soo biireen waad ku mahadsantihiin. Inta iga dhimana please channelka subscribe ta ii saara. Maanta waxaa inoo wadaa lollipop chicken ayaa maanta inoo wadaa. Chickenka marka hore sidaas ayaad u goosanaysaa, meeshaas hore ayaa banaynaysaa oo u nadiifinaysaa. yaa hilibka saarsaaran ayaa ka goynaysaa. waa kaasaa sidaas aan u jafayo kala u jafaysaa. waa lollipop chicken masha Allah ay ilmaha aad ay u jecel yihiin oo ay xiiseeyaan. waa kaasaa saasa u soo nadiifinay. waan soo diyaariyay oo kaasaa masha Allah. halkaas waxaan ku haystaa warango, cusbo, huruud, sanjabiil iyo basasha shiidan. intaas ayaan marka hore chickenka marinayaa iyo saliidna waan kusoo shubay. marka intaas ayaan isma marinayaa. hadduu ilaa yiraahdo ovenka ayaan sidaas ku gelinayaa ilaa ay muddo 25 daqiiqo. halkaana waxaa haysanaa alaabtii aan ku macaaneyleen. kaas waxaa waaye wing sauce, malab, brown sugar iyo unsalt butter iyo rice vinegar iyo red pepper. waa yar basbaas ayuu xogaagu leeyahay. marka in yar kaga darso butterkii 3 qaad camal ayaan soo goostay. waa kaasa huruudi iyo sanjabiishi iyo basashi iyo cusbadii iyo red pepperkii ayaan hadda ku shubayaa butterkii digsiga ku jiray. waxaan ku shubanayaa 2 qaado ama bakeeri halfkiisa camal ah oo rice vinegar ah. waxaa hadda ku shubanayaa wing sauce. chickenka ayaa lagu cunaa miya ma aqaano, waa chicken kulli ku sawiran. kaasa brown sugarkii ayaan ku shubay. hadda bakeeri halfkiisa waliba ka sii yar oo malab ah. waa kaasa alaabtii markay isku soo burtay is dhex gashay waan ka soo dejiyay. chickenka saas ayaa u dhex gashanaysaa. sidaas ayaa u marmarinaysaa masha Allah. sidaas ayaa u soo marmarinaysaa. waan soo dhameeyay 15 daqiiqo ovenka ayaan geliyay. waa ka soo saaray masha Allah. baastadii isku gadiska ahayd oo kaasa oo fudud ciyaalka u sameeyay cashada ciyaalka. waa kaasa chickenkii lollipopka ah. waa kaasa masha Allah. waa enjoy gareynaynaa daawasho wanaagsan.